كونية سجال بقول تضبيه تضباطن كي أيه هاي مركي شركة لقى ليه دلك طلياني جاي هشيس لقى شيء بيلها شيد له جرهان ولا موي واق بيه يسجال له إن إلى ورجان دول كايكو فديداي ورشدي هراء السنكرت إسناي وحنا ما أنت جوهر لقو قطعي شرج رايد ويكو حقيقينا يان بيلها لحد الشيد له لا شهر دول كاسي وحنا شركة سكاهر لي وضياش بقنكا نبضونا ذا يولي بسلاد دينتا بيلها لحد الشيد له ما ملك قبلك waxaan sheegaynaa dhul u soo leeyahay oo dhul qaranka dhigin maamulka degmada waxa degmada leh oo gobolka siina u sheegaynaa dhulka isnaa waxay ku askuul degmada jawhar kuma yaal gobol kuma yaal adala ma jiro aadiyabal ma jiro balcad ma jiro waxa isku yaal jawhar ma hadaa kana ma jiro shir la ma yiro jawhar isku yaal dhulkii jawhar lahay oo degmada jawhar lahayd in dhul goboleed oo ka dhigo gobolka alla oo yiraahdo ninka degmada joogo ama guddiga degmada joogo waa kaga digaataas دولكاس وحاس كلا ولا موي وحقبت كلا وكفرس وحالا السجالة ويكرس وحاس كلا واقبيو ولا لو شيء في عنواي ويرتانا وشيء حن حبد السودة إيه حياة السودة حبد السودة ودابو حياة السودة وصن ويرتا وصن ولا لو نحبد السودة ودابو انت إن اللي يسكهلا وحماش كجرو وحان جعلنا هاي تاسن إن ساس لو تحقليو اسكور إماد iyo qaab dare aysan dhicin awood sheegash inaysan iimaanin awood sheegash hadaa lagu haastay arti asnaay buulo farm soo bilaw ilahan waa lagu wada xooga loo jamanin wala muinin aaga jira ma nin sagaalna aaga jira ma waxaan leenahay hadinaay baahdi shiilo maanta adduunyada waxaan u sheegaynay dawladana aan u sheegaynay dhulkaas hadana laga soo xiriiri waayo waxaan leenahay waa meel ka dhac waa waxaan ogoleen waa waxaan dood ka qabno wixii culays iyo cariiri ka yimaadana maamulka ka mas'uul ahaan beerta isnaay taariikhdeeda haddaan ka hadalno 1917 ayaa isaas meeshan soo galay kanaalkan weyn educated leeyahay oo anaga u naqaan kaliya komisaariga bari aadayna 19 aa la qoday beertaas waxaa la dhihi jiray marka la imaanayay saas konton sano walahay waa u dhamaatay Somalisiyooniya laga dhigay waxaa loo bixiyay Società Nazionale Agricola Industriale Somalo wala Soomaaliyay wixii ka dambeeyay dawladda ayaa gacanta ku haysay dawladii waa burburtay waxaa yimid niman UAC la yiraay ayaa meeshii beerihii dadkii lahaay xoog iyo قصب عقاقاتي تعبك وقلي يال كذا الدولة مجرين بريتمات كي وابا بعضي وحاتم نمن UAC أو حوك وطه شيد لوحبة مدهين شي بيتري شيد لهذا وحي أباهن تاي دول كيدي عيدي إسكاله هاد ومدان وانت البويك وعلى بابي ديارنا مركان ومنهي وحارنا دلك ورمركز وقيب عنكنا شالي واك قيب قادنيني لكن wax alla wixii anaga noo gaar ah hana laga tashto dhulkaasna shiid la iska leh hadda dhulkii xoog lagu qabsan karo xoogna yeelimayni beesha caalamka waxaan u sheegaynay dhulkaas shiid la iska leh cid la cidii oo ma waa maalgelinayna iyo kontaraadan ku qaadanayna iyo maaragta shirkadan ka suubinayna oo dhahayso waa in shiid la soo xiriirto marka waxaan leenahay cid kasto dhulkaas u baahan dadkii loo soo mari jiray inay u soo maraan haddaysan u soo maraynin sida odayaasha hore ugu sheegeen wax kala soconayo ma laha anaga ka dhalinyaro ahaan go'aankii odayaasha qaatay ayaan taageeraynaa boobkii hore aan uga soo baxnay burburkii siyaad bari markii la bixinay oo nin kastaba meel iska qabsanay taasay salkan ku haysaa waxa ka jira dhul beereedkii oo dadkii iska lahay oo shidlahay in xoog loo sheegto dhulka laga wareegsado ilaa imika waa socota arintaas caalamku waxaan u sheegaynay nin kastaba dhulkiisa asaa iska leh ma joogto maanta in lees dardar oo awood xoogeed leeso sheegto ma joogto waxay joogtaa cid kastaba meeshii ayada ay leedahay inay gacanteeda ku soo noqoto ciddii markaas dhaqan rabtana ay la macaamiloto caruurtayni dhulkayni aan lahayn caruurtayni meel ay tacbadaan male meesha la leeyahay beerta koowaad bari masaanda la leeyahay nin abkoogayna ha ku duugo xoogan lagu haasta marka anaga intaas sugumeeni waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ama adduunka baan u sheegaynaa dhulkaas anaga leenahay anagoo laga tashanayna in cid
inay timaad ay falasho aanan yeelaynin oon ku dhiminayno. hadalkan ka soo baxay odayaasha dhaqanka nabadoonnada iyo salaadiinta beelaha lixda shiidle ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu sheegay in dhulkii ay ku fadhiday warshadii hore ee sokorta isnaay ay ku wareejinayaan ganacsato Soomaaliyeed. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed, Cabdishakuur Shaashaa, Somali News TV, Jowhar.